halkani waa BBC Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 2 duhurnimo oo gow ah waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada Facebook iyo bogga internetka ee bbcsomali.com kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimo Sabti ah 3 bisha September ee sanadka 2022 idaacada duhurnimo waxay idin la socodsiinayaan anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi qodobada aad ku maqli doontaana waxa ay kala yihiin al-shabaab oo dad rayd ah ku laayay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan dadka deegaanka ayaa sheegay in caruur iyo haween ay ka mid ahaayeen dadka la laayay dadka masaakiin walba meelaha ay joogay iska ahaayeen xalay iyo kusoo dheelmadeen ay ku toodbay qabteen maydadkii waxa iyagu ay qaateen oo ilmo yar yar arday iyo haween ay iyo birayaan qaateen muuqi waxay kala aan aragnay waa soo qaad madaxa qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka bini'aadanimo oo ka deeriyay xaaladda abaarta deegaanada koonfur galbeed culays soo food saaray dowladaha Yurub kadib markii uu Ruushka joojiyay gabi ahaan bagaaskii uu ka iibin jiray qodobadaas oo faahfaahsan iyo wararka ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan idaacadan duhurnimo oo uu soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan marka hore waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da waxaana u diyaar ah Xasan Sheekh mahadsanid Kawsar boqolaal qof oo baroordiiqaya ayaa safaf dhaadheer ugu jira sidii ay u maamuusi lahaayeen hogaamiyihii ugu dambeeyay ee midowgii Sofiyeedkii Mikhail Gorbachev oo meydkiisa uu yaalo gobolka Moscow xafladda aaska ayaan ahayn mid si heer sare loo agaasimay waxaana madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin uu sheegay inuu aad uga mashquulay ka qaybgalka xafladdaasi ama aaskaasi loo samaynayo hogaamiyahaas arrinta oo tafaftiraha BBC-da ee Ruushka uu ku sheegay in loo arko mid aan waxba ka jirin dhuunta ugu weyn ee gaaska ka qaada Ruushka isla markaana geysa Yurub ayaa wali xiran kadib markii la doonayay in maanta dib loo furo iyadoo xirneed muddo 3 maalmood ah arrintaasi ayaana cadaadis sii saaraysa dowladaha Yurub ee la halgamaya kor u qaadista kaydka gaaska ka hor xilliga qaboobaha shirkadda tamarta Ruushka ee Gazprom ayaa dib u dhacan ku sheegtay cillad la soo diristay shirkadda madaxa guddiga caalamiga ee laanqeyrta cas ayaa sheegaya in ururkiisa uu wali sugayo in ay helaan kumanaan maxaabiis ah oo lagu qabtay dagaalka Ukraine Robert Mardini ayaa waxa uu sheegay in labada dhinacba ay waajib ku tahay inay galaangal u yeeshaan meelaha ay ku xiran yihiin maxaabiistaasi marka loo eego qawaaniinta maxaabiista lagu soo qabto dagaalada The ICRC facilitated the safe passage. ICRC-du waxay fududeysay marin badqab leh waxaanu diiwaan gelinay iyagoo ka soo baxaya warshada birta ee Azovstal annagoo inoo suura gashay inaan u tagno iyaga hadda wax fikrad ah kama haysanno waxa iyaga ku dhacay taasina waa sababta aan dhammaantood u diiwaan gelinay waxaan haynaa faahfaahintooda gaarka ah waa inaan siinaa mudnaan buuxda We have their personal details is an absolute priority. Shiinaha ayaa uga digay Mareykanka cawaaqibka halista ah ee ka dhalan kara haddii aanay Washington burin heshiis ku kacaya $1 bilyan oo hub ay ugu iibinayso Taiwan afayeen u hadlay safaaradda Shiinaha ee caasimadda Mareykanka ee Washington ayaa sheegay in tallaabadaasi ay si weyn u wiqi doonto xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka oo aan awalba caga badan ku taagnayn kooxa u dhaqdhaqaaqa arrimaha dalka Sri Lanka ayaa dalbaday in tallaabo sharci ah laga qaado madaxweynihii hore Gotabaya Rajapaksa oo ku laabtay gurigiisa Jimcihii kadib musaafiris kooban oo si iskiisa ugu maqnaa waxa uu dalka ka baxsaday bishii July markii kumanaan qof oo caraysan ay ku qamaameen hooygiisa xilli ay socdeen mudaharaadyo ka dhan ah sida ay dawladdu u maareysay dhaqaale xumo ba'an oo dalkaasi soo wajahday ugu dambeyntiina hay'adda MSF ayaa waxa ay ka digtay in gabaabsiga biyaha nadiifka ee Pakistan ay sababi karaan kororka cudurro ka dhasha biyaha ay meelaha markaasi fatahaaduhu saameeyeen dadku ka helayaan afayeen u hadlay hay'adda oo lagu magacaabo Ahmed Bilal ayaa waxa uu sheegay in helista biyo nadiif ah ay tahay dhibaatada ugu weyn ee haysata dadka doonaya inay helaan cunto iyo hoy saraakiisha degmada Dado ee koonfurta gobolka Sin ayaa waxa ay sheegeen in 2 milyan qof ay haatan halis ugu jiraan
in markaasi dhibaatooyin cudurro ah ay wajahaan iyadoo heerka biyuhu ay markaasi kor u kaceen meelaha qaar waa kuwa fatahaadaha ah. warkii waa naga intaa dhegaystayaal. aad baad u mahadsan tahay xasan sheekh cumar. halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee b b c da. dhegaystayaal markana u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna duhurnimo. waa tahay duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal. aan ku bilaabnay ugu yaraan 20 qof oo rayid ah ayaa lagu laayay gobolka Hiiraan xilli ay u safrayeen inta u dhaxaysa magaalooyinka Beledweyne iyo Maxaas. maamulka gobolkaas ayaa ku eedeeyay ururka Al-Shabaab inuu dadkaasi xasuuqay kadib markii beelaha deegaanka ay bilaabeen iska cabin ka dhan ah ururkaas. Al-Shabaab ayaa sheegay in dadka la laayay ay ahaayeen maleeshiyad macawiisley loo yaqaano oo toddobaadadii la soo dhaafay duulaan ku qaaday fariisimo ay leeyihiin ururkaasi. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa sida ay wax u dhaceen uga waramay Axmed Mursal Xuseen. waxaa u dhaceen baabuur dad shacab ay saaran yahay oo isaga socotay degmada Maxaas iyo degmada Beledweyne ayay meel dhaxo oo yiraahdo Afridood ay si gaadna ku soo galeen. baabuurtiina waa gubeen, dadkii saarnaana waa laayeen. maxay ahaayeen dadka la laayay? dadka la laayay dad shacab oo dumar iyo caruur badan ay ahaayeen oo rakaaba oo qaarna ka yimaadeen Beledweyne Maxaas u socdeen, qaarna Maxaas ka yimaadeen intooda Beledweyne soo socdeen. dadka la laayay tiradoodu intee dhan tahay? niyo tiro sugan ma hayo, laakiin 27 qof ayaa hadda warkii u dambeeyay ayuu noqday. wax dhaawaca oo ka badbaaday ma jiraan? qaar baa dhaawac lagu hayaa, nin magaciisa la sheegayo helena lahaa, iyo qaar markii xabaddu ay ku bilaabeen ka cararay intaba way jiraan. ma isleedahay xiriir ayay arrintani la leedahay qabaa'ilkii la dagaalamayay Al-Shabaab? in wax kalaba salka kuma hayso. arrintii salka ku haysaa waxay tahay dadka shacabka ayay gumaadayaan. nuxurku waxa uu yahay nimanka la yidhaha shabaab waxay laayinayaan shacabkuna ayaga ayuu dagaal kula jiraa. ma fahamti? shacabka ayaa la dagaalamaya shabaabkuna dadka shacabka ayay laayinayaan oo waa kuwa ceesa ka gubay oo tuulooyinka ka gubay oo laynta kula jiray. ma xaqiijin kartaan in dadkan rayidka waxa laayay Al-Shabaab yihiin? Al-Shabaab waaye miino xitaa ku xireen miino ayagoo dadku baabuurka u saarna ay saaran yihiin ayay bosiib dad ku xireen ay ku qarxiyeen. ilmo iyo caruur gaari nooca saaran ay ku qarxiyeen macal baabuurkii. in aad gudoomiye beelaha abaabushaan oo dagaal gelisaan idinka oo dadka shacabka aan difaaci karin soo taasi mas-uuliyad darro dhankiina looma arki karo? adeer dagaal hadduu dhaco dadku wuu dhimanayaa oo dagaal baa dhacay. dadkana annagu dagaal gaara maanaan geline guryahoodii iyo ceeshoodii yaa la gubay. mar haddii ceesha laga gubayo iyo tuulooyinka oo dadka la laynayana dadku inay dagaal galaan waaye. aniguna waxaan wacad ku maray oo wacad ilaahay ku marayaa haddii alla idmo inaan ka jawaabo arrinka ay ku sameeyeen dadka shacabka. maxay tahay marka tallaabada gudoomiye aad qaadaysaan? tallaabada aan qaadayahay waa wacadka aan kuu marayo in aan deegaanada ay joogaan shabaab ugu tago ugana aargudo waxa ay dadka shacabka ku samaynayaan jawaabta ku habboonaan. shabaab xuduudda Itoobiya u gelayay waana ka soo saarnay. waxaan hadda meesha la isku haystaana waa soonka ay iska galaan degmada Boolabardiya degmada Beledweyne meesha ay iska galaan. rumaal bay ku yimaadeen saaka si gaada ay ku yimideen meesha ay galeen xalay. haddii dagaal dhacana waa kala adkaasho meel dhaxoo la istaagaa ma jirto. shabaab iyo annagu waa kala adkaanaynaa. haddii alla idmana ayaga kala adkaanayaan aba kuu sheegaye. ma jirtaa markii arrintan ay soo baxday oo dadkan la laabeeyey tallaabo degdeg oo aad qaadeen? tallaabo degdeg oo qaadayna waa inaan shabaab la dagaalano waana ku baxnay waana kusii soconnaa weliba. meydkiina waxaan u dirnay odayaasha iyo dadka kale ee dhakhaatiir dhaawaca soo ururisa intabana waa magaaladii ka baxeen saaka. dhaawiciina waa la soo ururiyey, meydkiina waa la ururiye waayaa. dad ayaan u xil saarna odayaal ah. annaguna waxaan u soconnaa howlgal oon isu diyaarinay waana u ambabaxnaa haddii alla idmo. Cali Jeyte Cismaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayuu kaasi ahaa oo Axmed Mursal Xuseen u waramayay. qaar ka mid ah dadkaas ayaa goordhaweyd lagu aasay deegaanka Teedaan. waxaa meydadkaasi soo qaaday oo aasay odayaal dhaqameed uu ka mid yahay Maxamed Cumar Cabdi oo daqiiqado yar ka hor ii waramay. maydadkii waxa iyagu ay qaateen oo ilmo yaryar oo ardaa iyo wax saasa iyo haween ay iyo biraayeen qaateen moogi waxay kaloo aan aragnay waa soo qaatay. dad iska masaakiin oo dugsi iska dhiganayay wax dad safar ay meesha ku laayeen. markaan dhagarqabayaasha niman baalimiina waayin ciidamo ayaa jooga meesha ayaga kusoo horjeedo oo maaragtay ama deegaanka ka mid a ama dawladda ka mid a. afar aag ay joogeen, afartii aag bayay ka cabsadeen ay dad masaakiin ahoo dugsi meel qur-aan ku dhiganayay
iyo dad safar ay hasuuqeen hasuuqaas bini'aadan ay ka shaqaynaan tirada meydadka aad idinku qaadeen imisay dhan yihiin dadka yaryar iyo dadka waaweyn oo qaadnay isku geyn hadda 40 iyo xoogaa hayna wax kalena ayaga baabuurta taalada ma garan meydadka ay iyagu qaateen xagee geeyeen tiradooda ma la ogyahay wallahi hadda anaga tirsigooda ma hayno oo dadku waa dadka deegaana oo reer miyiga oo qolaba meel buulo isaga tahay ilaa xalay afduubanayeen ma garan karno laakiin ilaa oo dhowr iyo 10 ayay waxay geeyeen leeyahay meel la yiraahdo baar dhabaq ma garan dad kalena waa ku sii laynayaan alle baar dhabaq hadda 3 nin ay ku dilaan telefoonna lagu leeyahay marka waa qolo oo hasuuq u diyaar garowdo waa waxay nool ayaga inay dilaan diyaar u ah dadkaas marka rasaas baa lagu laayay mise qarax maya dadkaas waa la qabtay waa la xiray wax waa la gowracay waxna risaasaa lagu laayay dadka masaakiin oo walba meelaha ayagu joogay iska ahaayeen xalay iyo kusoo dheelmadeen ay ku toodbay qabteen ma garan dad dhaawac ahna ma jiraan dhaawacyo waa jiraan meel kasta yaalaan oo balweyne waa loo qaaday maxaas meel layidhaha waa loo qaaday dhaawacyo waa badan yihiin meydadka aa qaadeen idinku ma aasteen weli lama aasina waa haddeer adood loo qodihaya ma garan dadka badbaaday weerarkaas ma jireen oo aad la kulanteen ha waa jiraan dad ilaahay ka fakiyey waa jiraan dad ayay meydaan uga tageen dhaawacu waa jiraa dad badanaa jiro ilaahay badbaadiyey ma garan kuwa ka badbaaday ee aad kulanteen haddii aad la hadasheen maxay idiin sheegeen waxay noo sheegeen waxna lagu haysta ma garanina in meel banaana la tuuray baabuur safar ay timid markii baabuur safarka ay timid gala la yiri lagu goray meela la yiri wada la yiri kadibna baabuurtii lagu gubay ma garato dad daaqada ka booday waa ilaahay ka badbaadiyey marka miinooyinna dhulkay geliyeen oo dad muslim ay la kaceen hadda leeleeh marka dadkaas waa dad nolosha bini'aadanka ka soo horjeeda waayo waxaa laga arkaan dad sidii dhaafayn waa yeel dhaafayn wax ay dhaafayaan aan la arag ma garat marka dhibaatadaasaa jirta al-shabaab waxa ay bartooda internetka ku soo qoreen amaba ku sheegeen in dadka ay laayeen ay ahaayeen macawiisley ee aysan ahayn dad shacab ah markaas maxaa ka jira maya macawisleyda aagagay degan tahay qadka internetkaad ku aragteen teedanoo kale waa aragteen hees waa aragteen meelaha lamida waa ogtihiin qof islaam oo mooguma jirto midka meel ka midana wax kuma dilin ma garat ma ahan marka macawisley iyo askar iyo waxaas wax loogu danlaya maahana waa wixii noolaan dilaynaa waa ma garat nolosha bini'aadanka la diriraan ma garat mid ka mid ah odayaasha dadka la laayay ayaa tahay hadda dhibaato weynaa dhacday dad shacabah baa la laayay ma laga yaabaa inaad wada hadal la gashaan al-shabaab maya shabaab annaga wada hadal la geli mayno mana la geli karno ciddii haddaan aamintada sidaan u gelaya hadda kuwaanba maaragtay dagaal kama dhexayno waxaa la laayay ma garat ayaan hore annaga dagaalayada naga dhexayno matooradii naga gubay marka wax wada hadal shabaab annagu aan la gelayna ma jiraan mana dhici doonaan hadii ilaa yidhaah wax u dili karaan dilaan wada hadalna la geli mayno dad wada hadal wax la galaawna waa dad dhaqano ama dad u dhaqan yahay ama dhul u dhaqan yahay ama xeel u dhaqan yahay ma garat jawi marka dad wada hadal furi kara annagu maba hinba mana furi doona haddii ilaahay muslim iyo dad dawladda iyo waxa le wixii ay dhibayso nolosha bini'aadanka ilaahay kaalmo naga sii doona haddii ilaahay yidhi waana sii jiri doonaa khawaarijtan kaasi waxa uu ahaa maxamed cumar cabdi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan oo iga waramayay dadkii ay maanta al-shabaab laayeen ayuu kaasi ahaan facebooka markana fursadda siiyo dhegeystayaasha qodobkaasi waxay ka yidhaahdeen ilyaas oo jooga dowlad deegaanka soomaalida waa ilyaas cumare waxa uu leeyahay aad ayaan uga xumahay xasuuqa ay al-shabaab dadka rayidka ah uga geysatay halkaasi waxaad moodaa in al-shabaab ay imika usoo dhigteen dhanka shacabka ee aan waxba galabsan. b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. madaxa qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka bini'aadanimada Martin Griffiths ayaa gaaray magaalada Baydhabo si uu ugu kurgalo xaaladda abaarta ay ka taagan deegaanadaas. qaramada midoobay ayaa ka digtay in dadka ku nool qaybo ka mid ah Soomaaliya in ay qarka u saaran yihiin macluul isla markaana loo baahan yahay gurmad degdeg ah intaanay xaaladdu ka sii darin. cabdinaasir cabdi caruush waa wasiirka gargaarka ahna gudoomiyaha guddiga abaaraha koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu iiga waramay waxyaabaha ay kala hadleen Martin Griffiths. maanta oo sabti ah waxaa magaalada Baydhabo lagu soo booqday wafdi uu hogaaminayay ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ahna madaxa hay-adda UNOCHA magaciisa raado Mr. Griffith. kulankaasna waxaa looga hadlayay xaaladda nolosha bulshada ee arrimaha gargaarka gaar ahaan ee deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. shirkaas waxaa dhinacayna fadhiyey wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Garan iyo xubno ka mid ah gurihiisa wasiirada. madaxweynaha ayaa markii hore ka hadlay in xaaladda bini'aadanimo ee shacabka koonfur galbeed ay kasii darayso mar ka dambeysa loona baahan yahay in gaar lagu eego
shacabkaas madaxweynena wuxuu kaloo ka mahad celiyey shaqooyinka hay-adaha UN-ka hay-adaha internationalka NGOska hay-adaha maxalliga ah NGOyada shaqada ay gobolkeena ka hayaan wuxuu ballan qaaday in gacan siinayno shaqooyinkooda loo fududeeyo waxaan warbixinta sitana ka bixiyey arrimaha kheyraha ka jirta deegaanada nafaqa darrada dhinacyada biyaha barakacayaasha iyo culaysada ay soo food saaray nolosha bulshada shacabka koonfur galbeed oo ra'aantii ah meesha ugu daran oo abaartu ay saamaysay wafdigaas qaramada midoobay marka ma u bandhigteen baahida jirta iyo qaabka wax looga qaban lahaa waxaan u sheegnay xaaladaha saddexda gobol bakool iyo gobolka shabeellada hoose dhibaatooyin ka jira nolosha bulshada siday usoo adkaanaysa dhinaca cuntada dhinaca nafaqada caruurta iyo in abaartu si aada u saamaysay gobolka wuxuu leeyahay guddi abaaro oo heer wasiir ah oo howlaha u xil saaray isku dubaridka arrimaha abaaraha waxaan u sheegnay baahiyaha meelaha kala duwan siday u kala horeeyaan laakiin waxaa aada u muhiim ah shirka xoogga lagu saaray in la isla gartay in gobolka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ay khatar macluula qarka u saaran yihiin taasaa ugu muhiimsan cala shirka looga hadlay waa tahay maalmihii ugu dambeeyey waxaa jira warar la isla dhex marayay ee ah in qaramada midoobay ay qaybo ka mid ah Soomaaliya uga dhawaaqdo xaalad macluul ah marka ma dhici kartaa in maalmaha soo socda heerka abaarta koonfur galbeed ay gaarto macluul dadka reer koonfur galbeed waqti dheer ee abaartan haysa culaysyo badan ahaayey waxaa jira dhimasho caruur nafaqa darro dhimanaya barakac baahsan qiimihii cuntada sare u kacay culays weyn ayaa gobolkaas saarnaa waana meesha u daran abaaraha ay saameeyeen innaga xogaha aan hayno waa in xaaladan koonfur galbeed aad u adag tahay waxaan ku jirnaa qiimeynihii u dambeeyey waxaa laga yaabaa in maalmaha soo socda go-aan la gaaro laakiin qiimeynta u dambeysa aan soo baraynaa laakiin waxaa noo muuqata in xaaladdu ay aad iyo aad u adag tahay laakiin mar rabin inaan ka hor dhacno ayadoon xogaha ay wax naga kala dhaman yihiin deegaanadee marka ugu badan ee aad doonaysaan inaad gurmad la gaartaan saddexda gobol koonfur galbeed gobolka baay bakool iyo gobolka kulli waa saamaysay laakiin waxaa jira meelo aad abaarta usii saamaysay sida degmooyinka qoryooley oo kale kuntuwaarey degmada walaweyn buurha kaba degmada baydhabo qalsac dheere diinsoor waajid xudur waa adig almost degmooyinka koonfur galbeed oo dhan aad culays badan ka jiraa qiimeynta u dambaysaana saatay insha allah go-aan ayaan lasoo saari doonaa laakiin aadaan ugu mahad celinayna hay-adaha UN-ka dadaalada ay ka wadaan koonfur galbeed Soomaaliya cabdinaasir cabdi caruush wasiirka gargaarka iyo ka hortagga musiibooyinka ahna gudoomiyaha guddiga abaaraha koonfur galbeed Soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo ii waramayay markana ruushka ayaa gabi ahaanba joojiyey gaaskii uu ka iibin jiray dalka Jarmalka xilli lagu waday in maanta dib loo furo dhuunta gaaska qaada oo maalmihii la soo dhaafay dayactir lagu waday sida ay sheegtay shirkadda Gazprom shirkadda ayaa sheegaysa in dhuunta Nord Stream 1 ay meel ka dilaacday isla markaana aan la sheegi karin xilli ay dib u howlgali doonto talaabadan ruushka qaaday ayaa dhabarjab xoogan ku ah shacabka iyo dawladaha Yurub ee ku tiirsan gaaska ruushka sida warbixintan ku eegaya Cabdiqaadir Yuusuf Cali dhuunta gaaska qaada Nord Stream 1 ayaa xirnay 3 maalmood ee la soo dhaafay kadib markii ay shirkadda Gazprom ay sheegtay inay dayactir ku sameynayso warkan ka soo baxay shirkadda ayaa culays weyn ku ah qoysaska Yurub ee aan awoodi doonin inay guryahooda kulayl u helaan xilliga qaboobaha ee dhawaan bilaaban doona xukuumadaha Yurub ayaa doonaya inay wiiqaan dhaqaalaha xooggan ee ruushka ka helo gaaskiisa kaas oo uu ku maalgeliyo duulaankiisa Ukraine hase yeeshee Yurub ma haysato meel kale oo ay si fudud uga heli karto gaaska ay sida weyn ugu baahan tahay bilooyinka nagu soo fool kale madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel ayaa sheegay in tallaabada uu qaaday ruushka ay tahay mid laga filayay isla markaana aysan go'aankooda ku bedeli doonin in xukuumadda Moscow ay gaaska u adeegsatay hub ahaan Moscow ayaa beenisay in gaaskeeda ay ka dhigatay hub ay kula dagaalanto dalalka galbeedka oo cunaqabatayn saaray dalkaasi kadib duulaankii uu ku qaaday Ukraine Jarmalka oo ah dalka gaaska ugu badan ka iibsada ruushka ayaa shacabkiisa iyo shirkadaha ganacsi ku booriyay inay yareeyaan isticmaalka gaaska si loo tashilo kaydka u yaala tallaabada ay qaaday shirkadda gaaska ruushka ee Gazprom ayaa ku soo beegmaysa wax yar kadib markii ay wadamada G7 ku heshiiyeen in la dhimo qiimaha ay ku iibsadaan shidaalka ruushka arrintan ayaa ka dhigan in wadamadaas toddobada ah ay qaateen siyaasad ogolaanaysa in shidaalka ruushka ay iibsadaan oo kaliya haddii ay ku helayaan qiimo ka jaban kan caalamka isla markaana la soo mariyo badda hase yeeshee ruushka ayaa dhankiisa sheegay inaanu shidaal u dhoofin doonin dalalka ka qayb qaatay go'aankaas dhuunta Nord Stream 1 waxa uu dhererkeedu gaarayaa 1200 kilomitir oo ka bilaabanaysa xeebta ruushka
ee u dhow Saint-Petersburg ilaa waqooyi bari ee Jarmalka. waxaa la furay sanadka markuu ahaa 2011 waxaana maalin walba mara gaas cadadiisu gaarayso ilaa 120 milyan oo mitir oo cubic. cabdiqaadir yuusuf cali aad buu u mahadsan yahay oo inala socodsiinaya warbixintaasi ku saabsan ruushka oo gebi ahaanba joojiyey gaaska uu ka iibin jiray dalka Jarmalka xilli lagu waday in maanta dib loo furo dhuunta gaaskaas. goordhow dhegeystayaal waxaan idinku wareejinaynaa ciyaarta Everton iyo Liverpool oo uu toos noogu soo jeedin doono Ibrahim Geedo.